السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوي الشودو وهذا الكان هذا ونسان وايكو اوفيشال فضلا جانك هذاك عصوب تا سبسكرايب صار هدا رنو اللي جوجتن وما سنتهاي ما انت برنامج عصوب ايدين ونا برنامج كاس سومالي ودن او ودا انفع دونا ان شاء الله ايكي سودو وبرنامج دوهاي برنامج او وعي gelin ah waaye saa ognahay cudur waxa soo baxay dilaa oo lagu magacaabo coronavirus wadamada qaar ay u la magac bixeen COVID-19 oo taqaanaa malana marka waxaa jirto Soomaali oo qurbaha degan iyo kuwa Aasiya degan marka waxaan rabnaa anagoo afka Soomaaliyeed ku hadlayna in aan dadkaas ka wacyi gelino wax alaala wixii update ah oo ognahay oo coronavirus ku saabsan iyo qaabka ay uga taxadiri karaan Soomaalida in la wadaagno waxaa jiro dad caan ah oo cudurkan ku dhacay hadii ahaa lahayn ciyaartooy iyo actors iyo jalaayaal ah dadkaasna waa idin la wadaagi doonaa sawirradooda arki doontiin iyo shaqooyinka uu galaaftay coronavirus-ka shaqooyinka dartiis loo joojiyay meelaha loo xiray dartiis waxaas oo dhan la wadaagaynaa marka anaga hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay coronavirus waa aragnay China soo u galay China oo kale tahadeertaan ayadoo technology-gaas haysato ay la tacaali laadaha Soomaa saasay tahayna oo kiisas fara badan ka geystay coronavirus-kaas marka Soomaaliya hadii uu soo gaaro maxaa u maleynaysan oo hadda marka dadka hortay karaan wacyi kaliya ayaan Soomaan horta Soomaaliya waxa waaye dad islaam ah waa dadkooda badana dadka iimaanka leh islaamka ah kuma dhaco cudurkan hadda wuxuu ku dhacay oo maanta la soo sheegay inuu ku dhacay macallin caan ah oo macallinka Arsenal Major Arteta oo ku dhacay asagana sheegay inuu ku dhacay wuxuu la kulmaan lahay ciyaar Arsenal garoonkeeda ku dheeshay teamka u baxayeen Europe League madaxweynahooda oo la kulmaan lahay ninkaas marka coronavirus qabay markii laga baaray Arsenal oo ciyaartooda la baajiyay ciyaar Man City u bixi lahaayeen la baajiyay waa la baaray waxa la soo ogaaday in Major Arteta uu qabo cudurka si lamida wuxuu ku dhacay ciyaaryahanka u horeeyay ee Premier League laga sheego ama Ingiriiska ciyaaryahan Chelsea u ciyaar Allah Hudson Odoi oo dhaawac ku maqan hadda cudur ku dhacay si lamida wuxuu ku dhacay ciyaaryahan lagu magacaabo Rogani oo Juventus u ciyaaro ayaa laga helay waxa ganaaxan oo kale oo karantiilan Paulo Dybala iyo Cristiano Ronaldo laba ciyaaryahan oo Juventus oo u ciyaaro waa labadooduba way ganaaxan yihiin oo saaxiibkooda ku dhacay cudurka ayagana waa looga shakisan yahay sidoo kale waxa laga helay qoyska Benjamin Mendy waa ciyaaryahan tare Man City uga ciyaaro qoyskiisa laga helay waxa la asagana uu ganaaxan yahay dhammaan waxa ganaaxan teamka Leicester City oo daafac kamid ah oo dhalasho Turki qaatay asal ahaan Yahuuda haajiray uu ku dhacay cudurka dad fara badan oo ku dhacay dad fara badan oo ku dhacay marka anaga ilaahan ka bareena inuu soo gaarsiin hadda Soomaaliya lagama sheegin dad si sax ah ugu dhacay ilaa ay hadda oo cudurkaas way qabaan la dhahay laakiin waxa jiro dad ilaa iyo 8 qof gaarayo oo elboorka Soomaaliya lagu haayo elboorka Soomaaliya laga qabtay markay saas diyaaradda ugu soo dageen waa la baaray dadku waxa la astaamihii cudurka laga helay sidaas darteeda loo xiriir marka dadka qaar waxa la dhahay in waxay codsadeen ee wariyaasha loo waco ee la kulmaan يعني waxaan lagu sameeyay tahay wax qalad aan ahaan agteed wax qalad kama sababtoo tahay wadan aragtay China oo technology-ga aragtay heesto oo cudurkan saan u dhibaateeyay hadii marka wadankaaga hooyo u soo xareysid oo hadana oo wax isaga buufiyaan ama wax uga hortagaan ay sahaysan iska caabin fiican ay sahaysan ayagana aad dhibaato fara badan u tahay marka dadkan la karantiilaayo waxaan dhiilaanay ka xumaanin waa wadankaaga kaliya horumarkiisa wax laga xumaado ma cudurkan wuxuu ku dhacay oo positive oo laga helay actor caan ah oo sanadkii hore ku guuleystay marinta Oscar Award-ka ee jirayga ugu fiican waxa la lahaa Tom Hanks Hollywood iyo xaaskiisa labadoodaba ayagoo filim oo Australia ku duubaya oo cudurkan ku dhacay wayna soo sheegeen Twitter-kooda ku soo qoreen in cudurka ayaga laga helay sidoo kale wuxuu ku dhacay madaxa caafimaadka UK waa haweeney ayadana Twitter-keeda ku soo qortay in cudurkii laga helay marka waxa jirto talooyin ay bixiyeen hay'adaha caafimaadka oo ah badana dadka fayraska qabo ama cudurka fayraska uu gaaray badana waxay isticmaalaan gacmahooda wajiga gacanta ku soo taabanayaan
gacantii meel saarayaan neefta ka sokow waxaa lagu kala qaadi karaa meel qof cudur qof qabo meel uu taabto hadaa taabatid oo kale oo wejigaagii wixii aad saartid already waxaa waa positive taadeen waxaa ganaaxan tiiman badan oo kubadda cagta ganaaxan horyaalka tusaalahan oo Spain oo kale la liiga waxaa si official loo soo saaray kulamada ka dhiman horyaalka inaan la ciyaari doonin wax taageero ay jiri doonin horyaalka Spain si lamida waxaa la soo saaray kulamada wiiga soo socda la ciyaar lahaa ee Champions League la kansalay kulamada soo socda talaadada iyo arbacada leel rabo usbuuc soo socda waa la kansalay ajligeeda waxa kulamadaas loo kansalayo wax tiimka loo ganaaxayo hadda waxa ganaaxan Leicester City Arsenal Chelsea baaritaana ku socda kulligood waxyaabaha marka oo loo kansalayo meelahaas waxa keenaya waxa waaye qaabka dhaqaatiirta ee u hadleen ay dhaheen meelaha la iskugu imaado sida shaleemooyinka kale meelaha beacheska xeebaha maqaayadaha waaweyn oo baararka ah ciyaaraha meesha ugu daran waay ma jirto meel kale oo 8 kun oo qof hal mar ay ma karto ma jirto marka 8 kaas kun hal qof kamid ah hadoo qabo ayaga dhan waa saameyn karaa qofka luqaadsiina qofka dhibaato far badan ka imaan inay isku neefsadaan ilaa dadkan waa dad boodbooda jirkoodan oo istaabana maanta soo dhan dad farxad ku jiro waa ismeel alnaan maalmo ka hor marka waxa soo baxday in horyaalka Talyaaniga aan la ciyaari doonin gabi ahaanba ilaa 4 Abriil laga gaaro waxaan maqalnay wadamada sida gaarka ah yani colaada uga dhaxayso colaada hoose uga dhaxayso Itoobiya iyo Sacuudi Carabiya Soomaaliya oo kala dhaxayso Sacuudi Carabiya oo kale hadda waxay dhaheen Allah coronavirus-ka wadamada oo saaidka u saameeyay Soomaaliya liiskeeda ku daray dad yar oo laga shakisan yahay jiro oo alaboorka ku xareysan Sacuudi Carabiya waxaas waa benguur waaye waxaana kala ku daraan in yani si ku meel gaar ah aan loo imaan doonin cimro iyo xaj hadii la gaaraba Soomaaliya soo aadi doonin Sacuudi Carabiya qalabka already baaritaanka Soomaaliya uu soo gaaray intaas ay soo gaarin ka hor ayaa qof laboorka Soomaaliya diyaarad ku soo degtay Itoobiya ka imaatay Kenya say sheegtay way soo baari jireen Kenya way soo baari jireen dadaan soo baarna soo gudbina kale dhig jireen laakiin Itoobiya dad soo baarin inta keentay la dhahay celiya haddana diideen inay celiyaan dadkaas ayaa waxa laga dhaxelay hal wiil oo Soomaaliya wiilkaas waa marka wiilka oo laga shakisan yahay dadka laga shakisan yahay liiskooda ku jira kan hadda ugu adag oo macnaha la isdhihi karo cudurkaas u dhow yahay sababtoo taa waxa laga dareemaa lahay koow inta la baarin ba astaamihii cudurka oo dhan waa laga arkay korkiisa laga arkay qandho fara badan jiirgo xanuun ilaahay nooma keeno uu imaan karaa qof Soomaali uu ku dhici karaa ilaahay dhibkaas nooma keeno laakiin in nadaafada lagu taxadaro mar walba shaqo ay qabatid gacmaha inaan nadiifisid oo jirkaaga kala aadan ku taabanin adoo nadiifin marka waxa kale oo war hadda soo dhacay oo sheegaya in kulamadii laga ciyaar lahay Premier League dhamaantood la kansalay xalay wara soo baxay oo ahay saacad ka hor warkaas soo baxay xalay wara soo baxay oo ahay in ciyaaraha Premier League la ciyaari doono taageerayaasha ay joogi doonaan intaas markii la sheegay kadib kiisas kala imaaday waxa lahay Mendy qoyskiisa qof kamid ah laga helay Man City la karantiilay Chelsea ciyaaryahan kamid ah laga helay waa la karantiilay Arsenal macalinkeeda laga helay waa la karantiilay kadib markii warkaas oo dhahay waxa hadlay macalinka oo Wolves Nuno Espirito Santo oo dhahay dadkii dhimanayo oo baaba'ayo coronavirus ku dhaca dariska aheen oo walaalka aheen marka ciyaaro ma sii wadi karno han laga joojiyo marka Premier League waxa lahay sharci rasmi ah soo saaray dhamaan kulamada EPL-ka FA Cup ahaleed EFL Cup hadday ahaleed kulamada laga ciyaaro League 1-ka iyo League 2-ga iyo Premiership-ka iyo kuwa haweenka ay ciyaaraan iyo waxaas oo dhan waa goobal iskugu imaado waay UCMska dada daawanaya ilaan Soomaa laba kulan markii la ciyaarayo waxa intaas ciyaartooy amaanayso taageerayaashooda amaanaya dad far badan amaanaya faafida cudurka marka ayadoo oo laga hortagayo waxa la go'aansaday in la kansalo horyaalka ilaa 3 Abriil ilaa 3 Abriil warqadana waa tana oo rasmiga ah oo soo baxday oo lagu kansalay waa tana sidoo kale hadda war soo baxay waxa la sheegayaa in Real Madrid oo ayaga laftirkooda la karantiilay sababtoo taa awgeed ciyaaryahan kamid ah kuwa basketball-ka ciyaaro oo Real Madrid
kuwa basketballka ciyaara laga helay cudurkaasaa lahay si saxana looga helay sidaas darteed ciyaaryahanada basketballka ciyaaro iyo kuwa caadigaaba oo kubadda cagta ciyaaraba waa la karantiila sababtaa waa kulmaan xeradooda aalamiintadan waa isku dhowdaha lahay marka Real Madrid oo dhan in la baaro waaye qofkii waxaa waaye dad u tagaa dad uu saaxiibo leeyahay dadka in la baaro qoyskiisa la baaro waaye si looga hortago waxaa waaye wax ilaahay imtixaan ilaahay uu wato waaye ilaahay hanaga badbaadiyo dawadiisa lama hayo ilaa hadda wax dawadiisa toos u hela ma jirto ilaahay dadka islaamka dad baa ku dhinta dad baana ka badbaada horta yaa la dhihin yacni cudurkan qofka ku dhacay toos wuu dhimana wixii qofka u qorantaa keliya dhinto waa 50-50 waaye qofka oo ilaahay u qoro oo keliya ku dhimanaya anaga dad islaam aan nahay insha Allah cudurkaas ilaahay naga hayo maanta barnaamijka idin wadnay oo wacyigelinta ahaa intaas ayuu nooga egyahay fadlan channelka haddaa ku cusub tahay subscribe saar haddaa hore noola joogtana waa mahadsan tahay asxaabtaadana la wadaag barnaamijkan oo sii share garay si oo dad fara badan u gaaro waxaa jiro dad dibadda loo degan yahay oo waalidiintood iyo walaalahood ay dibadda degan yihiin waliba saaseta aan ka warqabin loo baahan yahay mar walbana dadka waxaa xasuusinaynaa inay daawadaan meelaha baraha laga helo ilaha laga helo wararka coronavirus ku saabsan sidoo kale anagana waxaa diyaar idin lanahay wax alaala wixii abdheeda oo markaas soo baxo saacado ka hor inaan idin soo sheegno insha Allah waan idin soo gudbi doonaa waa idin jecelnahay saa noo jeceshihiin waa mahadsantihiin